maanta ay taariikhdu tahay 25 bishii toddobaad 2022 kalfadhiga afraad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland gudiyada joogtada oo maanta isugu yimid xafiiska guddoonka waxay isku raaceen qodobadan in muddadan uu baarlamaanku furan yahay la meel mariyo kow la xisaabtanka xukuumadda waa qodob koobaad furitaan akoonka baarlamaanka oo khaas ah uu u leeyahay qaan sheegashada baarlamaanka oo lagu daro deymaha guud ee lagu leeyahay dowlad goboleedka Jubbaland State ilaalinta xuquuqda shacabka sida kor u kaca maciishada oo loo baahan yahay xukuumaddu inay wax ka qabato hoosna loo dhigo loona yeero xubnaha ganacsatada ee leh awoodda soo dejinta si baarlamaanka ay u hor yimaadaan oo loogala hadlo iyadoo loo marayo wasaaradda ku shaqada leh ilaalinta xuquuqda xabsiyada iyo ka warqabkooda oo in inta la tago iyagana inta la tago guddiga xuquuqul insaanku ay ka keenaan warbixin baarlamaankuna dood u gelin doono haddii ilaahay yiraahdo dabagalka hay-adaha bixiya kaalmada ama serviceka ay mujtamacu ugu baahan yihiin oo la ogaan doono iyadana meelaha ay gaaraan iyo siday u gaareen iyo wixii guud ee dalka yimid markii hore iyo sidii loo qaybiyay oo u baxan waa hay-adaha samafalka gudiyada wasaaradaha qaar ay samaysteen iyagoon la horkeenin baarlamaanka wax xeer ah oo ay ku dhisan yihiin uusan jirin oo lagama maarmaan ay tahay iyadana in baarlamaanka la horkeeno samafalka iyo gudiyadaas iyo samafalka iyo dadkaas oo inay meesha wada hor yimaadaan hay-adaha dhaqaalaha oo dalka ka jira hay-adaha dhaqaalaha ee dalka ka jira in iyagana xisaabtan iyo dalka waxay soo geliyaan oo faa'iidada u ah iyo waxay ka qaadaan ee iyaga faa'iidada u ah iyadana in laga hadlo baarlamaanku ka hadli doono haddii la yiraahdo xukuumadda waxaa laga rabaa inay kabto caafimaadka waxbarashada iyo canshuuraha cuntada daruuriga marka maanta kalfadhigii gudiyada joogtadii ay isugu yimideen kalfadhigan afraad ee baarlamaanka hadda furan gudiyada joogtadii waxay horgeyn doonaan baarlamaanka qodobada aan kor ku soo sheegnay waad mahadsantihiin assalaamu calaykum